وأيضا سلامة جايس كسو دوادا جانالك ولاشينا سعادة سمارة فضلا هدي أد نوغو عصوبتها إنو سار سبسكرايب هدي أد هورو نولا جوگتو يسو دوو هدي أد موقالك كهشو إنو سار لايك كومنتي كوديو فكرة دادا كو آدن وحيابها جعشها إن جانالك أنكسو كرديو طبعا دالحيسكي إدامشلينتي أنكو جوغناي ودن كاسي رواندا مقالة كيغالي أيو ولي كو قدو جرنا maanta waxaan ku dalxiiseynaa baskaas sababta u saaranahay ayaa ah in aan dooneyno inaan kala barano xaafadaha magaalada Kigali anagoo hadba meesha aan marayno inoo sheegi doono wiil u dhashay wadankaasi Kigali oo dabcan baska nala saaran baskan waa baska ugu weyn ee laga leeyahay wadanka Rwanda waxaan naqana dalxiisayaashii ugu horeeyay ee yimaado wadankan ee baskan weyn markaas ku dalxiisa baska sida u jeedin waxa uu ka furan yahay kor waxaana uu leeyahay qaybo badan oo dabcan anaga qaybta sare ayaan ka saarana sidoo kale qayb hoose ayuu leeyahay baska waana bas aad iyo aad u weyn inkastoo anaga tiradeena ay yar tahay haddana waa bas dad badan loogu talagalay laakiin anaga ayaa nasiib u yeelanay waxaan naqana dadkii ugu horeeyay ee baskan ku dalxiisa waxaan maraynaa dhammaan markaasi magaalada Kigali oo dhan anagoo u baran doono hal xaafadaha markaasi magaalada Kigali sidoo kale dhaqanka dadka qaabkay u socdaan ayuu dabcan inoo sharaxayaa wiilka markaasi nala saaran baska oo dabcan ah wadaha markaasi baska wiil caawinaya waxa uu haystaa microphone waxaana uu inoo sharaxayaa sida markaasi u socono meesha aan marayno waxyaabaha ay caanka ku tahay magaalada dhan ayaan soo maraynaa baska sidoo kale fanaana nala saaran sida aragteen arki doontaana waxa uu dabcan noo qaadayaa heesihiisa kamid ah yaa abshirsaad nala saaran baska yaa showaba ku dhex qabana baska idinka yaabaysiin asxaabta aad bay u badan tahay marba meel ayaan maraynaa hadda waxa aragtaan horta wadankan wuxuu caan ku yahay maxaan ku rahdaa green ama cagaar waa wadanka greenka ayaa la yiraahdaa oo waxa dabcan meel walbo waxa ka baxaya markaasi geedo cagaaran oo wadanka ayaaba lagu sharxay markaasi geedaha meelaha qaar aan marayno magaalada ay wax yar ka soo baxsan tahay sida hadda u jeedaan oo kale magaalada dhan waa soo gali doonaa insha Allah waa soo maraynaa laacibka qaranka Catoosh iska raaxaysanaya ninkaas meeshaas iska fadhiya waayahay wali waxaan ku guda jirnaa dabcan daawashadii iyo waliba tamashileyntii markaasi dalxiiskeena waxaana baskan aan saarnaan doonaa ilaa iyo gurigeena aan ka tageeno calankeena Soomaaliya wadanaa sidoo kale calanka Astaana wadanaa iyo calanka Rwanda wadanaa oo maxaan ku rahdaa iyo calanka Soomaaliya isku dhagan oo sawiro ku galeen wiilka waa kaasa microphone-kiisu wataa wuxuuna kala barayaa hadba meesha aan marayno marka maxaan ku rahdaa magaalada dhan ayaa saas u soo mari doonaa insha Allah wax badan aan ka soo bartay magaalada video ayaa idinkaga sameynayaa waxyaabaha ku soo arkay waxyaabaha ka bartay lacagta meeshan laga isticmaalo dhaqanka sidoo kale wadankan waxyaabuhu aadka ugu fiican yahay waxyaabuhu aadka ugu xun yahay waxaasoo dhan mujadaa insha Allah waa idin la wadaagayaa video ayaana idinkaga sameynayaa hadda xoogaa magaaladan ka soo yara baxnay xaafadan waa xaafad faqiireed sidii wiilka inoo sheegayaa waa xaafadaha dadka iska normalka ah oo dhaqaalaha aadka u badan haysan dega sida u jeedaan waa guryo yaryar iyo maxaan ku rahdaa dadka wadankan faqiirka ka ah ama dhaqaalaha saas u badan haysan degan xaafada hadda aan mareyno xaafadaha dhan iyo magaalooyinka dhan uu soo barayaa wadankaasi Rwanda waxaana dabcan baskan ku dooranay maadaama wadanka wax yar aan joogeyno in aan kala barano maxaan ku rahdaa xaafadaha wadankaasi Rwanda bari ka sheekay karno wadankan aamusnaanta aad ugu badan dadka wadankan aad ay u aamusan yihiin haye showgeyna inoo bilowday yaa ujeedaan abshirsaad yaa Allah heesto uu ku luqeynaya hadaa furo waa yaabaysiin taageerayaashiisana waa go'aana yaa selfie ka duubanayaan baare iyo Samaara waa tahay hees wuxuu qaadayaa cajiib ah hadaa codka u furo waxa ka baqay in copyright lagu qabto yaa waa ka soconayaa dabcan waa jeclaa laakiin inaa codka u furo
heese kala gedisan oo sidoo kale waxaa noo daarnaa oo maxaan ku rahdaa Soomaaliya fanaaniinteedu ay qaadaan calankeena xataa meeluu nooga babanaya dadku wayna salaameyn markaa meesha mareynay oo calanka Soomaaliya si ay noogu gartaan oo Soomaaliya inta maroosii dhahaayeen marka maxaan ku rahdaa weli baskaa saaranahay yaa waa damaashaadeena kaaliska arag weli xaafadihii faqiireedka mareenaya magaaladan waa galeynaa insha Allah maxaan ku rahdaa xaafadaha dhan horta waa baranay video waan idinkaga soo sameynaa insha Allah damaashaadkeenina weli waa u sii socdaa ahey weli baskiyaa saaranahay ku dhaha maxaan ku rahdaa meel aan marin malaha ku dhahay wadankan horta wuxuu aad ugu fiican yahay wax jaama ma arkaysid sida hadda soo aragteen ama fiidiyooda soo daawateenba wax jaam ma soo aragteen waa maya meeshan jaam ma leh ku dhaha waa wadan nadiif ah hadda cara u jeediin laakiin waxa galoona magaalada galoona ma fahanteen waxa kaga sii yaabay meesha madaxdooda ay degan tahay maxaan ku rahdaa magaalada dhexdeeda ah madaxtooyada aad ay kaga dhowdahay meeshaas waxa ku qoran tabeelo ku dhagan oo loo ogoleen kaamiro in wax la duubo in la sawiro intaba meeshaas waa idin soo duubi lahaa quruxdeeda laakiin waaba sharci markaas ayaga ay ku dhajisteen inaa laga ogoleen kaamiro iyo wax duubitaan iyo wax sawir ah waa ka xumahay laakiin meelaha laga ogol yahay caadiga anaga maadaama bas kor ka furanaa saaranahay waa idin soo duubay oo waa aragteen waana arki doontaan hadda waxaa sii galeynaa maxaan ku rahdaa magaalada banaankeeda hadda xoogaa aan soo aadna banaanka saas u fog maahan laakiin xoogaa waa ay ka fog tahay magaalada inkastoo wadankanba uu yar yahay oo isku dhadhow yahay aad buu u yaryahay wadankan maasha Allah laakiin waa wadan ay dadkooda dhisteen anagana waxaa rajeyneynaa wadankeena in saan oo kale u dhisano saan oo kale u quruxsano wadooyinkan ku dhahay bisinka Soomaaliya bacaad lagu arkaa mugtaa meeshan bacaad waxa la dhahay ma arkaysid xataa baadiyahooda waxa saaran laami no more bacaad jaay waxa soo dhan laga yaqaan meeshan meel walba waa la dhisay qaar ka mid ah xataa hadda dhismaha ku socoto oo way dhisayaan muslim iyo gaal intaba wadankan way degan yihiin inkastoo sida la ii sheegay laba qabiil isku baabi'iyeen haddana way is cafiyeen wadankoodii ay dhisteen maxaan ku rahdaa dadkoodii kaga dhintay halyeeyadoodii waxaasoo dhan way xuseen ma fahanteen meelo u sameeyeen
oo meelo maxaan ku rahdaa lagu booqdo oo qabriye u sameeyeen xataa sida aragteen fiidiyogankii ka horeeyay waxay sameeyeen meelo anoo ka sheekeynaya aragteen arjena meelo oo lafahoodii dadkii dhinta lafahoodii lama duugin yaa meelo lagu xareeyay waa la tagaa waa la soo daawadaa waa la soo taxsiiyay qaar muslimiina ku jiraan iyo qaar gaala intaba marka hadda u jeedin magaalada Fiyugeed soo ma jeedin meel koraa ka joognaa marka si dhaxgalna ka sii qurux badan inkastoo wadankan uu badan yahay meelo oo markaasi buuro ah yaa buuro u badan buuro baskan kor iyo hoos buu u leeyahay ma fahanteen qayb hoose iyo qayb kore anaga qaybta kora saaranahay qaybtaas maxaa ku rahdaa magaalada ku kala baranayna saa idin sheegana waxaana la saaran wiil Rwandes ah oo dabcan kala baraya maxaan ku rahdaa meesha aan marba aan mareyno anagaan ugu talagalnay inaan soo raacno waana baskii ugu weynaa waxaana naqanay dalxiisayaashii ugu horeeyay nasiibka u yeesho baskan inay raacaan wadankan marka imaada hargab ay ugu dhacmo fahanteen soo cimilada waaya u maleynaa gaaladu waxaan oo kale waxay dhahaan matqaanaa oh my god dhahaan yaa waan tan basa saarana koodaha isinka meel aan soo arkin ilaahay ma awoorna wow beautiful city ruuxda yaa kaaliska argullah Kigali in the house Kigali first country والله وطن عجام لهين بوق لهين يا قشن لهين وسق لهين everything okay تها وطن كان عليها والله the best وطن the best وطن عليها ما شاء الله ساكي أسوكر إلى هاد وسارنا مرب ميلا تجينا سورة قلينا كالس كارجان كنا يا هذا يابس هذا يابس وطن كينا يا إلهي وصان كني وطن كينا ربي ورحمن وصان كني وطن كينا ساهدو هالها يا بسمك هالمالن من يستني نكتب والله واو واو يا نشان وين هالجروب يا شاي هالباور يا سكر مرة وكذا سكر مرة هالجري هالباور نوكي شو نشان حركة ساتت ودم بدن جدا كلمة هذا إيش الوطن كان عاد ترحيس بالسؤال هذا دتس كدجن ما شاء الله إيش أكل دمبينا كجرت أبا يا ورحنا عند ديل ملو غيرنا كده واو 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 أصحابتي ذولي وحصارنا بسكي أنا طبعا كلا برانينو المقالة iyo xaafadaha wadadan waa wadada aadaysa hotelka aan ka deganahay magaalada Kigali ee wadanka Rwanda hotelkaas waxa la yiraahdaa La Bosch dadkii garanaya ee yimid waa ay garanayaan dabcan magaaladan horta waxa aad ugu yar ama Rwanda oo dhanba Soomaalida 5 ama 6 qof ayaa dabcan istaqaano ayaa degan 5 ama 6 istaqaano anaga oo 8 qofooda meeqa ku noqon karnaa intaas ku noolaada haddii ka soo tagnana 5 iyo 6 la soo hareysaya waayahay 3 maqaayad bis ayaa ku taalo wadankan ganacsiga Soomaalida aad ugu ma badno soo wadankan aad bi Soomaalida ugu yar tahay ma arkaysid qof Soomaali oo ka hor imaanaya dadka wadankan u dhashay xataa ajaanibta kale aad ugu yar wadankan ee ku nool dadka u dhashay bis aad ugu badan wadankan sida Kenya oo kale maahan oo meesha ka baxdaba Soomaali ay ka hor imaanayso iyo Ethiopia camal ma ahan inta Soomaalida aad ay ugu yar tahay mid kale waxa laga yaqaanaa aamusnaan ma fahanteen waa tahay asxaabteeda intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa haddii aad muuqaalkan ka hesheen like tahayga ilaabina subscribe ka sidoo kale amaana Allah farxad ku noolaada dhamaantiinaba